لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الإخوة المسلمون، waxaan meeshaan insha allah idinkugu soo gudbinayaa inuu la gaaray mowsimkii xajka sanadkan. xajka waa rukni min arkaan alislaam, tiirarka waaweyn oo islaamka uu ka mid yahay, oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ay ku taagan tahay. nabiga caleyh isalaatu wassalaam wuxuu yihi: buniya alislaamu calaa khamsin: shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulu llah, wa iqaami asalaa, wa iitaa'i azakaat, wa xaja albeyti, wa sawmi ramadaana man istataaca ilayhi, wa xaja albeyti man istataaca ilayhi sabiila. tiirarka islaamka waa shan: shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulu llah, in la qiro axad xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaahay ma ahee, nabi maxamed rasuulka ilaahay inuu yahay, salaada in la ogo, bisha ramadaan in la soomo, sakada in la bixiyo, iyo beytka ilaahay in loo xajiyo. shantaa tiiruu ku dhisanya, marka waa tiirarka islaamka ka mid ah. waxaa ilaahay uu farad yeelay subxaanahu watacaala cimriga qofka hal mar inuu xajiyo ugu yaraan, haddii uu kari karo. ilahi wuxuu leey subxaanahu watacaala: walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila. ilaahay wuxuu ku leeyahay dadka dushooda, wuxuu ku leeyahy inay xajiyaan oo beytka ilaahay ay u xajiyaan qofkii kari kara, man istataaca ilayhi sabiila. waxaa laga rabaa qofka muslimka ah haddii ay soo marto waqti uu kari karo inuu xajiyo, hantidaas uu haysta inuu ku xajiyo oo beytka ilaahay ku tago, oo waajibkaa iska guda hadduusan weligiis xajin. haddii uu heli karo inuu xajiyo waqtiyo badanna way u fiican tahay. xajku nabiga caleyhi isalaatu wassalaam wuxuu yihi: alxaju almabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna. xajka lagu baarinimo sameeyey abaalgud kale ma leh ilaa janno ma ahe. xaj mabruur, alxaju almabruur, xajka lagu baarinimo sameeyey jazihiisa waa janno. qofka aaday xajka waa marti ilaahay, waa qof aaday oo u safray ilaahay dartii subxaanahu watacaala, iyo inuu kusoo guto cibaadadii ilaahay subxaanahu watacaala, beytka ilaahay iyo mashaacirta islaamka inuu soo guto. marka yani fadli weyn ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu geliyay xajka. waxaa ku yaalo mashaacir waaweyn iyo meelo waaweyn oo aan laga helin meelaha kaleento. waxaa ka mid a beyt alxaraam, masaajidkii xurmada lahaa maka, oo halkii salaad oo qofka ku tukado ay u dhiganto 100,000 oo salaadood oo meelo kale uu ku tukaday, ilaa masjidka nabowiga ma ahe. waxaa kaloo ay leedahay carafa istaagideeda, oo maalinta 9 dilxija alcarafa uu yihi nabigu: alxaju carafa, xajku waa carafo. maalintaasna waxay ka mid tahay xajka. waxaa ka mid yowm alxaji alakbar, oo maalinta ciidda ah ee weyn, xaj weynaha la yiraahdo. waxaa ka mid dawaafkii beytka ilaahay la dawaafa, sacyi bayna asafa walmarwa. ilaah yihi subxaanahu watacaala: ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah. safa iyo marwo waxay ka mid yihiin shacaa'irta waaweyn, calaamadaha waaweyn oo diinta ilaahay ka mid ah. marka xajka waa meeshii nebi ibraahim uu dhisay markuu taagay nebi ibraahim beytka ilaahay. ilaahayna waa ka sheekayey subxaanahu watacaala: waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt wa ismaaciilu rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إلهي سبحانه وتعالى نبي إبراهيم ayaa dhisay beytka, markuu dhisay beytka ayaa la yidhi ogeysii وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. waxaa la dadka ogeysii beytka ilaahay inaad usoo xajiyaan, way ku imaan doonaan iyaga oo lugeynayo, iyaga oo gaadiid saaran ayay ka imaanay, waxay ka imaanay meel kasta oo fog ayay ka imaanay. yaatuuna min kulli fajin camiiq liyashhaduu manaafica lahum, si ay xaadir ugu noqdaan wax u taraya, manaafic fara badan oo wax u tarayso si ay u xaadiraan. qofka xaajiga waa qof xaadiraya manaafic aada u tiro badan, aada iyo aada u tiro badan, lama soo koobi kara manaaficdaas. manaaficda waxaa ka mid a dembi dhaaf, waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala raxmadiisii, waxaa ka mid ah cibaada iyo camal saalixo fara badan, waxaa ka mid a waxaa la soo koobi karo manaafica inay u xaadiraan darteed. marka nabillahi ibraahim waxaa la yihi, wuxuu yihi ina lakum beytan faxujuu, ilaahay guri buu idin dhisay, soo xajiya. guriga meesha cidlada ku yaalay ilaahayna waa ka aqbalay subxaanahu watacala nabi ibraahim, waa ka maanta loo xajinayo, mashaariq ilaa maqriba laga xajinaya, meel kasta laga imaanaya, beytkaasa lagu qulqulaya, dadka isugu imaanay, mid cad, mid madow, mid qani ah, mid maaragtay aan waxba haysan, intaba meesha la tegaya. marka beytka ilaahay waa inuu noqdaa mid aad u xajiso oo yacni aad kusoo cibaadeysato, noloshaada wax ka bedela, yacni aakhiradaadii kuu hagaajiya, adduunkaadii kuu hagaajiya. marka xajka ha ka baaqan haddaad kari karta, xajka ha ka baaqanin, maxaa yeeley xajka waa rugni aada iyo aada u weyn, waa manaafic kulligiisoo dhan, waa khayr kulligiisoo dhan. soo cibaadeysa cimrigaada, haddii aad tagto waa cimrigaadii iyo cimri lagugu daray. 100,000 oo salaadood waxaad ku tukan kartaa 83 sano. marka hal mar aad ku tukatay xaramka ayaa ilaahay kuu qoraa inta 2 ragcadood aad tukatay, salaatuleyl aad ku tukatay ayaa intaa laguu qoraa. marka waxay yidhahdeen culimmada waa asbaabta cimri dheeriday ka mid tahay. haddii aad xajiso cimrigaadii ilaahay cimri kuugu daraya subxaanahu watacaala. marka hala xajiyo ayuha annaas, in allaha farada calaykum alxaja faxujuu, nabiga saasuu yidhi, dad yahow ilaahay wuxuu idinku waajibiyey xajka ee xajiya. in allaha farada calaykum alxaja faxujuu. marka waxaa la rabaa in la xajiyo insha allahu tacala. waxaa kusoo maray wax fara badanoo waxaa laga yaaba in dhaqaalo kusoo maro, xoogaa mar gacanta kuu soo galaan, ka faa'iideyso marka oo xaji ka faa'iideyso.